xabad xanuunka ama feere xanuunka ama chest pain wax loo yaqaano waa xaalad caafimaad darro taas oo sababaan xanuuno kala duwan oo jirka ku dhaco waxaana la dhahaa adduunka oo idil sanadkiiba boqolkiiba 20 ilaa boqolkiiba 40 inuu dhaxayso ayaa lagu arkaa guud ahaan bulshada chest pain ama feere xanuunka ama xabad xanuunka qofba soo u yaqaano. marka su'aashu waxa ay tahay yaa sababo xanuunkan ama arrinkan ama dhibaatadan. waxaa jiro xaalado caafimaad darro ama xanuuno kala duwan oo sabab u ah chest pain-ka ama feere xanuunka. waan kala saari doonaa insha Allah si haddii aad muuqaalka daawanayso feeraha ama shafka ama xabadkan ah xanuunka dareemayso aad u ogaato halka uu asal ahaan ka yimid feere xanuunka ama chest pain-ka aad dareemayso. okay balse intaan u guda galin muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto lana wadaagto asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan. mahadsanid. chest pain ama feere xanuun ama shaf xanuun ama xabad xanuun qofba si u yaqaano waa xaalad caafimaad darro oo ay sababaan xanuuno kala duwan. marka xanuunada ayaan sheegi doonaa insha Allah ilaa 15 qaab ayuu ku yimaadaa. waan kala saari doonaa mid kale wax ugu duwan ugu duwan yahay waa sheegi doonaa. marka haddii aad muuqaalka daawanayso oo xabad xanuunkan hore iskugu aragtay ama hadiiba hadda aad dareemayso si fiican u dhageyso mid walbo wuxuu kan kale ugu duwan yahay saa u xaqiijiso halka asal ahaan uu kaaga yimid feere xanuunka ama xabad xanuunka aad dareemayso. haddii adiga isku arkinna haddii uu jiro qof asxaabtaada kamid ama ehelkaada ama qaraabadaada oo dareemayana u gudbi muuqaalkan oo u share garay oo la wadaag si ugu faa'iideysto dhibaatadana halka ugu timid oo u ogaado. marka aan guda galno wax sababo lambar 1 waxa keeno xanuunka bulshada u taqaan gaaska gaar ahaan nooca loo yaqaan laabjeexa afka qalaan lagu yiraahdo gastroesophageal reflux disease. noocan waa gaaska aad ayaan soo sharaxnay in badan xanuunka bulshada u taqaan gaaska. marka noocan waa nooc gaas kamid oo laakiin xanuunka laabjeexa u taqaan bulshada waxaa dhacaya albaabka caloosha iyo tubadan dheer oo esophagus u dhaxeeya ayaa dabcayo. marka waxaa dhacaya stomach contentiga ama caloosha wixii ku jiray ayaa kor soo aadaya biyihii iyo cabitaankii wax lamid marka aashitada ayaa soo raacayso. marka cuntadii wixii ama cabitaanka oo cabi iyo wixii lamidka macnaha qofka oo qaatay aashitada markay soo raacdo saa ognahay aashitada tubadan dheer saa hore u soo sharaxnay cashiro badan uma adkeysan karto oo unugyada ay ka samaysan tahay epithelial ay ka samaysan tahay ma ahan mid u dul qaadan karta aashitada. saas darteed xanuun ayuu qof ka dareemayaa tubadan dheer. saas darteed feeraha maadaama ay ku dhirirsan tahay feeraha ayuu qofka xanuun ka dareemayaa. marka chest pain-ka sidaas ayuu ku yimaadaa qodob koowaad. marka see ugu saari kartaa 14 leen 15 nooc ayaan dhahnay way ka badan yihiin laakiin 15 ugu badan waayo isbitaalada lagu arko dadka macnaha markii ay ka cabanayaan xabad xanuunka. qodobka marka see ugu saari kartaa kuba kale kan waxa ugu saari kartaa chest pain-kan ama feere xanuunkan waxa waaye qofku waxa u raacsan calaamadihii gaaska lagu yaqaan ay kamid tahay in qofka cunto uu kusoo gudoomo ama cabitaan uu kusoo gudoomo oo macnaha kusoo gudoomo waxaan ka wadaa afka ama dhuunta ay u imaanayso dhuunta inuu xanuun ka dareemayo in wax kulul oo kala qoyaan ama dhanaan macnaha afka mararka qaar inay soo gaarayaan caloosha ay ka imaanayaan in korka hor iyo wax lamid oo ka dareemayo in oodin mararka qaar inay ku taaganta oo dareemayo. calaamadaas ayaa u soo raacaya markii xabad xanuunka oo sababa gaaska macnaha oo gaaska uu ka yimaado. waa qodobka koowaad. qodobka labaad ee sababi kara xabad xanuunka xabad macnaha waxa ula jeedaa feeraha ama shafka qofba soo u yaqaan sida sawir kurtiina ka muuqato. qodobka labaad ee sabab u noqon kara waxa waaye muscle strain wax loo yaqaano oo waxaa dhacaya muscle-iskan feeraha daboolaya in ku yimaado inflammation ama infection inuu ku yimaado. inflammation markuu ku yimaado maadaama xabadka ay ku daaharan yihiin waxaa dhacaya qofka xabadka inuu xanuun ka dareemo. marka tan in la fahmo aad ay u fududahay markii dhibaatada ay ka timaado muscle-iska ama murqahan kor oo ku daaharan xabadka tan tenderness ayuu qofka dareemaya oo murqaha markii xabadka saas looga riixo qofku wuu danqanaya ama markuu activity ama shaqo qabto kale oo ordo kale ama oo shaqo oo qabto kale
ama oo socda ama oo rugmada oo kale يعني xabadka xanuun uu ka dareema marka hadduu dhaqdhaqaaq sameeyna xanuun uu ka dareema haddii la taabtana xanuun uu ka dareema marka waa outside waa banaanka waaye macnaha marka tii horena waxaan soo sheegnay calaamadaha yani lagu garto xanuunkaas gaaska kan labaadna waxaan dhahnay qofka danqasho banaanka dareema haddii oo yani aan la taaban aan la riixin hadduu activity ama dhaqdhaqaaq badan oo sameeyana xanuun uu ka dareemaya qodobka labaad ee keeni karana saas ayaa looga saaraa qodob koowaad iyo inta kale qodobada kale macnaha qodobka saddexaad ee keeni kara qofku inuu xabadka ama feeraha xanuun uu ka dareemo waxa waaye haddii injury ama dhaawac uu kasoo gaaro rabiska ama feeraha macnaha oo lafahan feeraha hortiina ka muuqdo ayaa waxaa dhacayo qofka in yani injury ama dhaawac ama jug ay kasoo gaarto marka tan waa iska fududa inaad fahanto oo qofka doo shil oo gala ama jug kale ay kasoo gaarto ama wax loogu dhufto dhagax ama bir ama wax lamid ah ama meel oo kasoo dhaco kale يعني uma baahna yani inuu qofku isweydiiyo xabad xanuunkan ama feer xanuunkan ama shafka inuu ku xanuuno halkay ka timid inuu isweydiiyo uma baahna maadaama uu ogyahay ba halkay ka timid marka taas ayadana sidaas ayaa looga saaraa kuwa kale qofku wuxuu ogyahay waa waxa ku dhacay qofku ogyahay sida caadiga ah qodobka afraad waxa waaye esophageal rupture wax loo yaqaan esophagus saa ogna waa tubadan dheer hortiina ka muuqata cunada macnaha dhuunta kasoo qaato caloosha geyso marka tubadan yani haddii rupture uu ku yimaado ama tir ama wax loo yaqaana yani dilaac uu ku yimaado oo qofka inta badan waxay timaadaa rupturekaas wuxuu yimaadaa tusaale oo kale qof markuu matago oo zaid si xoog leh oo dhaho kale macnaha oo si aad macnaha matago oo xoog iskaga keeno kale dhiig yar matago inuu ku arkaa laga yaabo dhiiggaas oo kasoo raacay Mallory syndrome waxa la jira dhiiggaas oo macnaha kasoo raacay dilaac ku yimid esophaguska marka ayadana waa xaalad kale oo rupturekaas ama xanuunkaas marka waxay keenaysaa qofku inuu feeraha xanuun ka dareemo marka haddii saacado ka hore markaas ama maalin ka hore yani ma tagtay yani kadibna xanuun zaid macnaha uma tagto kale oo qofka oo matigiisa dhawaq oo la socdo qaylo oo kale la socoto xanuunna kadib ka dareento maalin kadib ama saacado kadib ama daqiiqado kadib ay xanuun ka dareento feeraha xanuunkaas wuxuu ka yimid halkaas inaa fahanteen ayaa rajaynaya oo macnaha dhaawac soo gaarto badan dheer matagaas xooggaas kaga keento darteed yani ayaa loo aaneynayaa qodobka shanaad ee keeni karto qofku inuu dareemo xabad xanuun waxa waaye xanuunka asmada loo yaqaano ama neefta wax loo yaqaano xanuunka hore u soo sharaxnay marka soo keenaa xanuunkan maadaama yani xanuunkan yani waxaa la xiriiriyaa xanuunada breathing problemska ama qofka neefta ay dhibayso marka qofka sidoo kale waxaa dhacaya in inflammation uu ku yimaado airwayga ama neef mareenka macnaha inuu sidoo kale yani inflammation uu ku yimaado inflammationkaas ama dhibaatadaas timid ama infectionkaas tusaale ahaan ku yimid inta badan waxaa yani meeshas ka dhashtay infection ayaa ka dhashto qofka asmada qaba inta badan yani infectionna ayaa inta badan kusoo laalaabto marka waxaa dhacaya qofka in يعني just pain oo dareema ama xabad xanuun oo dareema marka qofku waxa xabad xanuun lagu arkaa waxa u soo raaca asma markay tahay ama neef ay tahay xanuunka neefta bulshada ay u taqaanaan yani markay tahay waxa u soo raaco qofka naqaska inuu ku xirmaayo qunfac qaleel ah iyo wheezing cod buuxa in la maqlayo dhakhtarka markuu dhageysto marka codka taa ma u baahnid hadaa qunfac isku aragto qaleel ah oo xaaqa aan wadan naqaskan uu kugu dhagan yahay feerahan uu ku xanuunayo horan laga yaabo dhakhtar inuu kaaga soo sheegay inaa xanuunka neefta qabto dhibaatada halkaas ay ka timid inaa fahanteen ayaa rajaynaya marka qodobada yani waa la kala saari karaa mid walba wuxuu caan ku yahay jirsaas ay ku fahmi kartaa qodobka lixaad waxa waaye ay keeni kara inaad dareento just pain ama xabad xanuun ama feer xanuun hiyatul hernaya waxa loo yaqaano hernayada wax kale maahan yani ama hiyatul hernayada waxa waaye calooshii ayaa waxay soo dhaxgalaysaa xabadka si ay u soo dhaxgalay marka saa ognahay caloosha iyo tubadan dheer albaaba u dhaxeeya albaabkaas marka يعني waxay galaan loogu talagalay waxay ka soo baxaan loogu talagalay marka waxa dhacay caloosha yani waxay soo riixaysaa ama ay soo galaysaa tubadan ay soo dhaxgalaysaa qaybta koro yani caloosh yani waxay soo dhaxgalaysaa tubada oo albaabka ay soo gudbaysaa marka maadaama albaabka ay soo gudubtay yani waxay keenaysaa yani caloosh waxay ku jiraan ama aashitadii waxay si fudud inay ku soo gudbaan maadaama albaabka loo furay calooshna ay kor soo gashay qayb kamid ah albaabka xirnay sidoo ma xirnaanay maadaama uu furmaayo caloosha ay kasoo dhaxbaxday ay macnaha kor soo gashay aashtada ayaa kusoo laabanaya qofkana sidaas ayuu xanuun ku dareemayaa ayadana inaa fahanteen ayaa rajaynaya marka waxaa laga yaabaa tan calaamado kale iyo waxyaabo kalena arkin oo ahayn xabadkan uu ku xanuuna ay yani u ekaato yani
gaaska ama reflux inuu ekaataa yani laga yaaba markuu qofka calaamadaha qaabka u dareemayo maadaama inta badan waxa calaamad ah aan lagu arkin ama dadka qaar oo lagu arkaa calaamada qaar laakiin inta badan waxa calaamad lagu marko ah ahayn xabad xanuunkaas laakiin xanuunka qofka marka uu dareemayo inta badan waxa la cuntada markuu cuno kadib waay maadaama markaas aashtada la soo deynayo markaas ayuu inta badan dareemaa xanuunka oo ayadana waa calaamad yani lagu fahmi karo oo calaamadihii yani gastroesophageal reflux disease qodobkooda aan kusoo sharaxna lagu arkayaa qodobka toddobaad waxa waaye ee keeni kara xabad xanuun qofka inuu dareemo qofka hadduu qabo tuberculosis ama TB hadduu qabo TB qofka hadduu qabo waa lagu arkaa oo qunfac zaid ayuu isku arkayaa qunfacna dhiiga la socdo asmada waa ogeyn waxaan dhahnay dhiig lama socdo kan waxaa la socda TB markay tahay dhiig xabad xanuun dareentay qunfaca isku aragtay qunfacna dhiiga la socdo habeenkii dhiig badan isku aragtay miisaankaada wuu dhacay waxaas oo dhan TB lagu yaqaan ayadana waxa waaye xabad xanuunkaas wuxuu ka yimid TB shuu ka yimid sideed waxa waaye pleuris wax loo yaqaano ayaa keeni karta xabad xanuun pleuris marka wax kale ma waxa waa membrane-kan ama xuubkan ku daahan lungs-ka inflammation ku dhaca ama infection ku dhaca ama uu jiranaya marka ayadana waxa dhacayso lung compliance waxa la oo lumo oo yani sababihiina si fiican ay u kala fidi waayaan يعني maadaama xoogkii yani uu jiran yahay qofku waxa dhacaya maadaama xoogkii ku dahaarnay sanbabihi yani uu jiran yahay ama infection ama inflammation wax la mid oo ku dhacay waxa dhacay qofku inuu xabadka xanuunka dareemo marka iyadana waa xaalad kale oo keenaysa chest pain ama xabad xanuunka qodobka sagaalaad ee keeni karto waxa waaye pneumonia ama pneumonia qof si uu yaqaan oo ah infection kamid infectionadu ku dhaco lungs-ka ama sanbabaha ayadana qofku wuxuu dareemayaa xabad xanuun ayuu dareemayaa marka kan xabad xanuunka waxa la socda markuu yani lungs infectionka pneumonia loo yaqaan oo saameeyo qandho zaid ayaa la socoto qarqariye ayaa la socoto iyo qunfac ayaa la socdo intaas ayaa la socoto qandho zaid ah qarqariye qandhadan waa zaid yani qodobkaas muhiim waaye qarqariye iyo qunfac iyo xabad xanuun intaas ay macnaha isku aragtay ayadana waxay u badan tahay in pneumonia ay sababtay ama pneumonia qofku soo yaqaan qodobka tobanaad ee keeni kara in qofka xabad xanuun uu dareemo waxa waaye pulmonary embolism wax loo yaqaan marka pulmonary embolism wax kale ma ahan waxa dhacay in yani xinjiro uu ku sameysmo atriska yani dhiiga ku celiyo sanbabaha inuu yani xinjiro dhiig ku sameysmo macnaha dhiig ku kuntamo ayaa loola jeedaa xinjirta waxa dhiig inuu ku kuntamo dhiig xiro marka tan ayadana waxay sababaysaa qofku inuu xabad xanuun dareemo soo qof inuu naqas dareemo macnaha oo yani neefta ku dhagto soo qofku inuu dhiig oo qunfaco intaas ayadana ay keenaysaa macnaha markuu qunfac dhiig oo soo tufay ay keenaysaa marka ayadana waa xaalad khatar ah qofka yani halis gelin karto dili kartaba marka waa ayadana calaamadaas ayaa lagu gartaa qodobka 11aad waxa waaye ee keeni kara qofka inuu yani xabad xanuun dareemo oo xabadka ama chest pain oo dareemo feer xanuun waxa waaye heart attack wax loo yaqaan oo ah yani qofka in qabatiin oo ka dareemo wadnaha heart attack Soomaali ahaan intaan ka aqaan waa qabatiin inuu ka dareemo yani wadnaha oo xaalad degdeg ah waaye marka xaaladan yani way fududahay ayadana macnaha sida lagu garanayo qofku waxa soo isku socda maskaxda hal mar la qabanaya marka waxa dhacay qofku wuxuu dareemayaa xanuun feeraha ka dareemaya marka waxa uu soo raacsan qoorta iyo dhabarka ayuu xanuun ka dareemaya sidoo kale garka dhinacaan yani oo jawga ama garka sidoo kale ama qalka wax loo yaqaan asigana xanuun ayuu ka dareemaya sidoo kale wuxuu dareemayaa yani tabardari zaid ayuu dareemayaa tabardari ayuu dareemayaa qofka sidoo kale gacmaha iyo garbahana xanuun ayuu ka dareemayaa intaas muhiim waaye marka aad ka hadlaysid heart attack sidoo kale wuxuu dareemayaa neefta inay ku dhageyso intaas oo dhan marka waa qodob muhiim hortiin ay ku qoraysaa ujeedaan waa heart attack waxyaabo lagu garto waaye marka tabardari zaid dareento ishay qoorta iyo garbaha iyo gacmaha yani xanuun ka dareentay dhabarka tabardari zaid aad dareento saa sheegnay feerahan ay ku xanuunaan naqaskan uu kugu dhago waa xaalad ayadana muujinayso yani inay ka timid heart attack markii inaad fahanteen ayaa rajana heart attack waxa qabatiinka wadnaha si degdeg ah qofka yani loo qabto waayo attacks ogna sida Soomaaliha macnaha weerar waayo qofka wadnaha in laga soo weeraro waxa loo jeedaa qabatiin wadnaha inuu ka dareemo degdeg ah qodobka 12aad ee keeni kara chest pain ama xabad xanuunka waxa waaye myocarditis wax loo yaqaan myocarditis waxa waaye inflammation ama infection inuu ku dhashto ama uu ku dhaco muruqa wadnaha oo myocardium loo yaqaan inuu infection ku dhaco marka ayadana qofku waxa lagu arkaa xabadka inuu xanuun ka dareemo qandho inuu dareemo
neefta inay dhib ku noqoto, tabardari zaaid inuu dareemo, heart ratekiisa ama garaaca wadnihiisa inuu ziyaado ayaa lagu arkayaa. marka ayadana sidaas ayaa lagu ogaadaa. qodobka oo 13aad ee keeni kara xabad xanuunka waxa waaye angina wax loo yaqaan. angina waxa waaye qofku inuu dareemo xanuun xabadka oo ka dareemo. marka xanuunkan kuwii hore wuxuu ugu duwan squeeze ayuu dareemayaa qofku in xabadka saas iskugu soo manjirinayo oo kale oo saas iskugu soo cambuusayo oo kale. ma aqaan qaab Soomaali idinku sheegay ama saas in iskugu soo yani ciriirinayo oo kale inuu dareemayo, squeeze ayuu dareemayo oo pressure ama cadaadis ayuu wuxuu ka dareemayaa xabadka. xanuun kaliya ma kan cadaadis waaye iyo macnaha isku soo majirayo isku soo yani shay yani gacanta ku qabatay oo kale oo saas yani si adag u qabanayso oo kale ayuu qofka saas camal dareemayaa. pressure cadaadis fara badan inuu wax ka saarihin oo kale dareemayaa. marka aydan saas ayaa lagu gartaa xabad xanuunka noocaas oo noqda. marka waxa u soo raaca qofka inuu garbaha xanuun ka dareemo, dhabarka inuu xanuun ka dareemo, qoorta inuu xanuun ka dareemo, gacmaha inuu xanuun ka dareemo ayaa u soo raacda ayadana. marka maadaama yani tii hore iska dhow yihiin ayadana yani wadnaha la xiriiriyo, marka saas ayaa qofka lagu arkaya. laakiin tan beenka xanuunka wuxuu ugu duwan yahay kii hore. kan waxa waaye majiris oo kale wax yani isku soo kuusaayo oo kale oo pressure cadaadis oo dareemaya qofka. qodobka 14aad ee sababi kara just beenka ama xabad xanuunka waxa waaye collapsed lung ama lung collapse wax loo yaqaan. lung collapse marka wax kale ma ahan, waxa sanbabihii inay yani isku soo ururaan ama isku soo shuuqaan ama isku soo yaraadaan yani sabab la xiriira cadaadis ugu yimid air space-kii oo loola jeedo saa ognahay waxa ku dahaaran sanbabaha yani xuub ayaa ku dahaaran. marka haddii sanbabaha kale dhexdooda oo galo wax loo yaqaano ii sheeg air ama hawo ay gasho, langiga waa sida ogna wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan compliance oo kala fida. markii space ku kala fidaya hadii hawo ay soo gasho waxa dhacay inay adkaato inuu kala fido. saas darteed langiga isku soo aruuraya maadaama space ama meel oo kala fido oo san haysanin. saas darteed qofku waxa dhacaysa in xabadka oo xanuunka dareemo soo kala neefta ay dhibto. marka qofku marka neefta ku xirmato xabadkan oo xanuunka dareemo soo kale wuxuu dareemayaa tabardaro, soo kale garaaca wadnaha zaaid waayo. marka nambarada ama calaamadahaas isku raacayaan ayaa fiirinaya. waxa laga yaabaa qodob hore aan soo sharxay neefta ku dhageysana aragta laakiin aad arkin garaaca wadnaha ziyaada. marka qodobadaas isku raacayaan ayaa u fiirinaysa. qodob kale waxa laga yaabaa inaad ku soo aragto garaaca wadnaha ziyaada intana yani ku aragto garaaca wadnaha ziyaada laakiin qodob kale oo raacay. marka qodobadaas isku raacayaan ayaa fiirinaysa. waa iska qodobada iska mid noqon karaan laakiin waxyaabaha kala duwan ayaa jiro. tan saas ayaa lagu ogaadaa. qodobka 15aad ah qodobka ugu dambeeya ee keeni kara xabad xanuunka waxa waaye costochondritis wax loo yaqaan. costochondritis wax kale ma ahan cartilage ama arjooda yani ribiska la xiriirta waxa ku dhacaya yani infection ama inflammation ee ku dhacayo waxayna keenaysaa mataqaana qofka chest pain ama xabad xanuun inuu dareemo. marka xanuunkan marka si lagu fahmaa xanuunka waxa lagu fahmaa markay arjooda ay ka timaado oo xabadka macnaha saa ognahay lafaha yani waxa jira arjow isku xigto. marka dhibaatada markay arjowda ka timaado oo lafta aysan ka imaan macnaha lafaha feeraha markay ka imaan arjowda ay ka timaado feeraha waxa dhacayo in qofka oo waxa lagu fahmaa macnaha in qofka markuu yani xanuunka uu ziyaado macnaha uu zaaid u xanuunka noqdo markuu fariisanayo ama markuu jiifanayo ama markuu yani santacsanayo wax la mid ah ama markuu tusaale oo kale rukuucayo haduu dukanayo oo kale oo positionkiisa markuu bedelo si guud macnaha qaabku fadhigiisa oo kale inuu fariisto rabaa xanuunkii dareemaya inuu rukuuco rabaa ama oo foorarsado wax soo qabsado alaab oo kale oo dhulka taalan xanuunkii dareemaya. marka positionka tan ku xiran tahay iyo physical activity-ga shaqooyinka uu qabanayo inuu wax soo qabsado oo dareemaya. marka ayadana saas ayaa lagu gartaa. inaan fahanteen rajaanaya 15 qodob ee ugu badan ee sababta xabad xanuunka ama feer xanuunka ama shaf xanuunka qubso u yaqaan ama chest pain-ka mid walbana yani si loo xaliyo ay leedahay waa ka hadli doonaa insha Allah taala. laakiin hadii aad daawatay oo adiga isku arkay waxa mar kale ka codsanayaa asxaabta in la wadaagto si ugu faa'iideystaan insha Allah taala. shaqinta ku soo koobeena. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.